Somali weyn, Somali weyn waxaanu ayaa salo furayay. helay adoo wadada maraay Soomaali weyn raadi dhageyso adoo sariirta saar Soomaali weyn raadi dhageyso adoo gaariga ku jiro Soomaali weyn raadi dhageyso Soomaali weyn bishaaro bilkhayr dhaha adinkuna waxa walada cusub ee Malsam oo dhawaan wadanka Sweden laga hergeliyay ma tahay oo ma doonaysa qof eheladiisa lacag u diro haddaba xawaalada Malsam ayaa diyaar kuula ah waxaadna ku diri kartaa qaab online ah waxa sidoo kale ay tahay xawaalada Malsam xawaalad haysata sharciyada saxda ah ee lacagta lagu diro hadii ay hal lahayd swishka iyo ID-ga haddaba si aad eheladaada meel kasta oo caalamka ay ka joogaan aad u gaarto lacagaha aad u dirtaan waxaad kala xiriiri kartaan telefoonada eber 1 ama malsam.se waana xawaalad degdeg iyo amaano leh oo meel kastoo aad joogtaan eheladiina gaarsiinaysa lacagta aad u dirtaan ballanteennuna waa malsam.se waa xawaalada malsam meel kastoo aad joogtaan midigtiina malsam ayaa taagan Somali weyn waxaanu ayaa salo furayay. wanaagsan dhageystayaal idinkiin meel kasta aad joogtaan waa raadiyo Soomaali weyn 88.8 Gothenburg ayaad naga dhageysanaysaan dhageystayaal maanta barnaamijkeena waxaan ku qaadaa dhigi doonaa burburka qoyska ee ku soo badanayo qaaradda Yurub haddaba si aan u ogaano waxyaabaha keena burburka qoyska waxaa marti maanta barnaamijkeena noogu ah qoraa aqoon-yahanad Ifraax iyo oo kamida hooyooyinka Soomaaliyeed ee bartay aqoonta arrimaha bulshada una ololaya xuquuqda qoysaska Soomaaliyeed Ifraax ugu horeyn ku soo dhawaaw raadiyo Soomaali weyn ما شاء الله ما تصنتها ودوهاي Ifraax markii laga soo tago Soomaaliya Soomaalida degan qurbaha inta badan waxa saameeyo burburka qoyska waxaad kamid tahay dadka hal doorka u ololeeya xuquuqda in qoyska Soomaaliyeed ay mid noqdaan maxaad isleedahay way u wacan tahay burburka qoyska horta burburka qoyska marka laga hadlaayo waa arin waxaan ku iraada aad u weyn oo u baahan saacado fara badan waqti fara badan buug fara badan oo gooni in laga qoro maxaa yeelay waa arin cajaa'ibkeeda leh labada qof oo Soomaaliga ah ee lamaanaha ah isguursanaya ma aha laba qof oo diyaar u ah in qof walba qofka kale uu nolol la wadaago gabadhan si loo soo koriyay wiilkana si loo soo koriyay inkastoo isguur ay ku yimideen waxa laga yaabaa hooyada Soomaalida sin inay gabadh u koriso wiilkana si u koriso bulshada hadhowto markay tagaan marka qof walba ay dhibaato ku noqoto wiilka ay dhibaato ku noqoto inuu gabadh fahmo gabadhan ay dhibaato ku noqoto wiilka inuu fahmo marka ani waxa aaminsanahay maxaan ku iraada dhibka ugu weyn qoyska burburkeena horta wuxuu ka yimid ilmanimadii labadan qof ee lamaanaha ah oo waalidiinta mas'uuliyadoodii qaadin markooda hore taas marka laga soo gudbo waxa laga imaado kolay Afrika Soomaaliya siiba oo ragga ay ku leeyihiin xuquuq saa'ida halkan marka la yimid ragga xuquuqdaas ay laga qaado leeyahay meeshan de waa la wada sameeyaa saaxiib gurigaaga hawshaada ka qabso oo maxaan ku iraahdaa faaraha familka hoose waa inaad qaybtaada ka qaadatid meesha gabadha sidoo kale aydan ay door bulshada banaanka ay ka qaadatay oo ay shaqo gashay wax baratay iyo waxyaabo la midka ah niman fara badan oo Soomaaliyeed marka ama rag fara badan oo Soomaaliyeed kuma qanacsana arintaas taas oo keentay inay isku dayaan inay nolosha qoyska ay baabi'iyaan laakiin ay hilmaameen in dadka koowaad ee dhibaatada gaaraysa ay tahay carruurta gabdhahana sidoo kale ay yeelo waayeen maxaan ku iraahdaa dulqaadkii laga rabay inay u yeeshaan in ragga ay la nool yihiin rag asal ahaantooda geljirayaal aha marka labada dhinacba dhibku uu ka jiraa ma fahamtay marka laga soo tago Ifraax Soomaalidu waa dad reer guuraa ah oo dalka ka yimid wadamadan sharciyada ka jiro markii ay Soomaalidu gabdhaha ay fiiriyeen inay wax bartaan iyo inay xuquuqda rag iyo dumarka inay sinaadaan isqudhiina gabdhihiinan wax bartay ama qurbaha imaaday Soolim kuma eeday karo in xuquuqdii ragga markii aad laasheen ama aad hoos u dhigteen inaad ayaga qudhoodii aad ka dheereyseen oo sidaas uu ku imaan karo khilaafka familiga
kole horta uma arko ani gabadh inay dheereyso wax oo ninka ragga ah ay tahay inuu u arko hanjabaad asi ku socoto gabadh inay dheereyso ama ay wax barato ama ay shaqaysato ay familkeeda mustaqbal wanaagsan u yeesho waa wax ay tahay ninka inuu ku faraxsan anaga shalaa ugu faraxsan ragga Soomaaliya jooga in ninka dhakhtar oo noqdo inuu dibadda aado maxaan ku yiraahdaa wax soo saacidsado oo ugu sabcinayno ilmihi aan ugu heynay oo kaleeto maanta waxaan aaminsanahay inay tahay booska joogaan oo ay tahay inay gabdhihii ay taageeraan laakiin way dhici weyse oo ragga badankoodu waaba lacaynaa oo bulshada kale tacaynayso dhees haa naagtiyaa u talisa kan naagtiyaasaan tiri laakiin marka loo fikira cilmiyan labadan qof markay isqabaan kow horta waa inay saxaan ulajeedkan isku guursanayno muxuu yahay waa inay isku afgartaan maxaan kala rabnaa maxaan horta isku guursanaynaa ma jecelkan labada maalin oo maxaan ku irahdaa waa kaa hela waa ku rabaa ahaa sheekadan mase mustaqbal waxaa la kala rabaa 30 sano soo socoto 50 sano soo socoto in nolol la qaataa la rabaa in la og yahay waaye taas labada qof marka ayagoon taasay ogeyn oo qof walba ulajeedada iyo goolka oo guurkan ka leeyahay ogeyn haddii uu galo aroos la iska dhigto oo lasoo maxaan ku irahdaa baashaalka sheeka ka dambeynaysa badanaa familiyada Soomaalida weliba baashaalkooda waa mid saa'ida waa markiiba maxaan ku irahdaa gabadh waxaa laga yaabaa bil ayadoo la qabo 2 bil la qabay inay uur hore ka yeelato maxaa dhacay labada qof inaysan totally isfahmin ninkan wuxuu rabaa gabar cafayso maxaan ku irahdaa oo waqti la qaato gabadhina way xanuunsanaysaa walaacay maray dhibaatooyin kale tay maray laba qofood oo marka is aqoonin oo haddana xanuun oo soo dhex galo degdeg ah waxaan u maleynayaa inay ku adkaanayso inay nolosha maxaan ku irahdaa ay sii wataan dhibka halkaas ka bilowdan haddii xataa 5 sano soo socotay ay adkaystaan badanaa way ku fashilmaan because dhibaatada waxay ka bilaabatay guurkan bilowgiisa horeeto hadda weli waxaa arkay markii laga soo tago fahan la'aanta bilowga nolosha oonan jirin qorshe dhow sida hadda sheegtay 30 sano kale inta badan Soomaaliduna aysan qaarkood aqoonin wax weyn soo socda ay qabanayaan sidee loo sameyn karaa bulsho la jaan qaadan noocaas oo qorshe leh maadaama hadda aad u jeedaan inuu familiga ay burburayaan carruurta in la qaadanayo maxaad isleedahay ma hadda la bilaabaa in inaagas qaba sidee hadda la isku fahansiin karaa kale waxay taa labada qofba in horta muhiim ay u tahay inay ogaadaan waa isfahmi la'anahay kow in laga bilaabo halkaas maxaa isku fahmi la'anahay waa isfahmi la'anahay tan kaleeto inay koorsi qaataan inay aqoon kororsadaan maxaan familkeyga ku badbaadi karaa ninkan waa inuu rabo inuu familkiisa badbaadiyo gabadhana waa inay rabto inay familkeeda badbaadiso macna ma sameyna dad kaleeto maxay dhahayaan iyo dadka kaleeto maxay naga sheegaan dadka kale waxay sheegaan ayaga sheega guryahooda la joogaan war waayo soo adiga kuma saameyn karo sida qof shakhsi ah ma fahantay in marka qofka asiga uu dib isugu laabto aqoon korsado anaga familada badanaa waxaan kula talnaa markaan la shaqeynayo waxay tahay in familka aqoon lagu soo saacidiyo maxaa idinka qaldamay sidaas aqoontiina u saacidin kartiin waa familkiina xiriir ahaan dareen ahaan caqli ahaan nafsiyad ahaan loo kordhi karaa jaceylka labada qofood ee ku wada noolyihiin iyo isfahankooda marka taas lagu guuleysto waxaa lagu guuleysan karaa carruurtana inay wadadaas raacaan oo wada wanaagsan maraan oo ilmihii laga badbaadiyo wadan islaameed oo ku diin iyo dhaqan aanay joogaan luuqadooda xataa way adagtaasay ku bartaan labada waalid marka ay isku maqan yihiin in ilmihii dhexdooda ka baxayso waa wax cad Soomaa dhibaatada kale inta badan Soomaalidu markii raadiyo Soomaali weyn ay baaritaan sameysay waxa lagu ogaaday waxyaabaha keena burburka qoyska in dhaqaalaha kale in familka ay aad iyo aad dhaqaaluhu ay isku qabsadaan ayada qudheeda soo laguma tilmaami karo dhaqaaluhu wuxuu lafdhabar ka yahay burburka qoyska Soomaalida qurbaha waa xaqiiqo runtii weliba waxaan u jeednaa dhaqaalaha hadda markay qosayso in carruurta Yurub maanta lagu dhalo 50% annaga Norway markii la fiiriyo ay yihiin carruur ku dhashay guur la'aan maxaa keena hooyada iyo aabahan inay isku rajis garayaan inaysan isqabin waxaa keeno kale inay rabaan dhaqaale saa'id oo ceer ah oo aysan xaq u lahayn basically inay dawladda ka rabaan inay ka qaataan gabadhan waxay diidan tahay ninkan in dhaqaalihiisa hoos fadhiisato ninkan wuxuu diidan inay gabadhan soo hoos fadhiisato maxaa yeelay haddii ayadan ay soo hoos fadhiisto iyo carruurtii lacagta dhinacidaan ay ku baxaysaa Soomaaliya guri laga dhisaa ma jiro ma fahantay so ninkan asi wuxuu taagan yahay Soomaaliya guri ka dhisana gabadhan waxay taagan tahay ayuu taarursanaya aroosadeeda magaaladeedan wareegaya dhaqaalihi halkaas intuu ku burburaa qof marka maxaan ku rabaa mas'uul ka noqonaya familkaas ma jira dhaqaale ahaan waxa la isugu fahmi waa dhaqaale ugu muhiimsan waxay tahay badanaa gabadhan shaqaynaynin ninka kaligiis shaqaynaya ama gabadhiyo kaliya shaqaynayso ninka ma shaqaynayo taas waxay keenaysaa markii labada qof isku fahmi waayaan lacagta loo diraa waalidiinta haday ahaato familada kale haday ahaato wixii yariska la soo shaqeeyay meeshii familka laga gelin lahaa qoyskii oo noqon lahaa waxa koowaad oo la qiimeeyo waxa la qiimeynaa sidee Soomaaliya horumar looga sameyn lahaa Soomaaliya uma socotiin aan ku dhilayo dadkaas aniga ku naga soo horeeyay hadda halkan 30 sano joogaan meel u socdaan ma jirto halkan ay soo taageen annagana inta la soo taagnayna marka in Soomaaliya guriga ka dhisno abar oo cuno
macna musmeenas ilmaheena meeshaan laga siiyo maxaan ku dhahaa malmalaada iyo rooti. hooyooyinka qaar ayaga waxay ku qanacsan yihiin in ay lacag sabreyda kala qaataan midda soo lama dhihi karo dumarka inta badan qaladkooda ay soo aadaa qaladka qayb weyn ay ku leeyihiin hooyada ku qanacsan ilmaheeda inay sabreyd ka dhigto oo waxay hilmaantay haddii ayada birta caafimaadkeeda wax soo gaaraan ama dhibaata ay ku dhacday ilmaheeda inay dowladda si toos ula wareegayso oo aysan waarid lahayn aabba ma laha ilmahaas aabba micnaheedu ma laha maxaa waaye qof kaleeto mas-uulka ma jirto ayada haddii la waayo ilmahaas dowladdaasa iskale taasay ku hilmaan tan kaleeto lacagtay dhehaysa waa qaadanaya waa xaaraan totally because waa la qabaa beeneena meel inta ku qortay wuxuu dhowsaa lama qabo ninkanet guriga usoo dhaxay muxuu u sheegay dowladda waxaan arkaa hooyin soomaaliya oo ilmo maxaan ku eray da-dooda u dhexaysa 10 ilaa iyo beebiyaal ah wata okay yaa dhalay cunugan iska imaada ma kalaabyada aadaa habeenka sabdiyada axadaha ma soconayso ilmahaaga inaa tan kale dhibka ugu weyn ay keeni kartaa waxay tahay cunuga weliba magacii aabiis in loo diido oo magaca hooyada la siiyo aabiis hooyadiis loogu abtirayo ifraax inta badan markii familiga burburo ama hooyadu ilmaha inta badan hooyada ilmaha qaadato qaaradda yurub hooyadu markay ilmaha qaadato hooyadu waxay ilmaha ka fogeysaa aabbaha ilmihii markii aabuhu ka fogey waayaanna waxaa macquula inay laamaha dowladdu inay ilmihii dib ay ula wareegaan markii aad waxaasoo dhan aad soo xeerisid maxaad isleedahay ka ifraax ahaan xalka uu ku jiraa si loo badbaadiyo qoysaska Soomaaliyeed ku nool qurbaha xalka ugu weyn meesha uu ku jiro waxaa aaminsanaa inay tahay labada qof inay aqoon korar sameeyaan labada qof inay isfahmaan xataa haddii aysan ayaga isfahmi karin oo ay go'aansadaan inay kala tagaan inay si sharaf lagu kala tagaan waxaa naga dhexeeya carruurtan sideen u korsan karnaa taas xataa naftirkeeda waxay ugu baahan tahay si wadajir ah inay u weeraraan oo ay ogaadaan sideen arrintan ugu badbaadi karnaa annaga labadan qofood bilaadan waaye ma israbno soo maaha waa caadi laba qof inaysan israbin ay rabaan inay kala tagaan way kala tagi karaan carruurtooda laakiin waa inay xal u helaan labadan qofood uma mas-uuliyadda koowaad ee saaran waaye waxa keliya lagu badbaadi kara waxay tahay bulshadu inay isgarabsato lagana daayo dadka waalidiinta ah isqabo ama lamaanaha isqabo xanta iyo beenta magaalada laga wareejinayo ama beenta la isku soo sawiraayo Soomaali maanta caan waxay ku noqdeen social media been keliya ee wax walbeeto oo waxba ka jirin ee intay qabtaan ay faafiyaan wax walba waxaa loo sameynaa just hal musawir dartiis mana aan ilmeer yariis waxaa sameynaa ma ahan dhalinyaro teenager ma aha dad waaweyn waaye oo ay ahayd inay nolol lahaadaan rag iyo dumar isugu jira mana marka waxaan dhihi lahaa laga joojiya xanta laga joojiya caayada tirada badan hana la taageero wanaaga aad iyo aad u mahadsan tahay taasi waxay ifraax iyo maanta barnaamijkeena doorka qoyska marti igu ahayd ifraax waa aqoon-yahanad Soomaaliyeed barnaamijka ayay maanta igu waramaysay ayadoo ku sugan caasimada wadanka Norway Oslo barnaamijka maanta waxaa noo farsameynayay Ustaad Cali Sow maanta barnaamijka waxaa soo saaray Qadar Shaani waxaa halkan kala socodsiinayaan oo Saabir Cilmi Yuusuf barnaamijkan hadduu cidii oo dhaaf waxay dib ugu daalaci karaan barta aan ku leenahay website-ka somaliweyn.org intaan barnaamijka mid lamida ku kulmi doono sidaas iyo assalaamu calaykum helay adoo wadada maraay Soomaali weyn raadi dhageyso adoo sirrtaada saar Soomaali weyn raadi dhageyso adoo gaarigaada ku jiro Soomaali weyn raadi dhageyso Soomaali weyn bishaaro bilkhayr dhaha adiinkuna waxa walada cusub ee Malsam oo dhawaan wadanka Sweden laga hergeliyay ma tahay oo ma doonaysa qof eheladiisa lacag u diro haddaba xawaalada Malsam ayaa diyaar kuula ah waxaadna ku diri kartaa qaab online ah waxaa sidoo kale ay tahay xawaalada Malsam xawaalad haysata sharciyada saxda ah ee lacagta lagu diro haddii ay hal lahayd Swishka iyo ID-ga haddaba si aad eheladaada meel kastoo caalamka ay ka joogaan aad u gaarto lacagaha aad u dirtaan waxaad kala xiriiri kartaan telefoonada eber 1-2-1-1-5-4 ama malsam.se waana xawaalad degdeg iyo amaano leh oo meel kastoo aad joogtaan eheladiina gaarsiinaysa lacagta aad u dirtaan ballanteennuna waa malsam.se waa xawaalada malsam meel kastoo aad joogtaan midigtiina malsam ayaa taagan Somali weyn